السلام الله داود أشرف شرفت لي كسر هذا هالكلي و TTN Somali TV كسر هذا قضبدي عالم ويوركي وقدم به عالم كعلاد ونحسا إسرائيل مريكا كايو سلمي ذهب إيران أي كل جران iyo waxa la soo tabinaya saaka in duqeymo culus ay lagu arkay nawaaxiga Israel gudaha Tel Aviv halkaas oo laga soo tabinayo dhaqdhaqaaqyo culus oo Iiraaniyiintu ay ka bilaabeen iyo gantaalo halkaas ay ku beegsadeen iyagoo si rasmi ah Israel aysan u xaqiijin karin in gantaaladaas ay ka yimaadeen dhanka iyo Iiraaniyiintu laakiin waxa la soo tabinaya in xaaladdu faraha ay ka sii baxday isla markaana saacad kasta uu qarxi karo colaadda u dhaxaysa Mareykanka Israel iyo si la mid ah Mareykanka waxaase la soo tabinayaa in dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo Pakistan ay ka waday isla markaana ay doonaysay inay nabad ay ku dhex dhigto labada dhinac ay ku soo dhamaatay mid fashila iyadoo taa ay noqotay mid lagu guuleysan waayay isla markaana Iiraaniyiintu ay go'aankooda ku adkeyseen markii labaadna ay xireen marinka Hormuz oo sababtay khalalaaso horle Pakistan ayaa lagu eedeeyay iyaduna inay dhinac u janjeertay maadaama la soo tabinayo in dadka dalkaasi ku nool kala bar ay yihiin shiicado waxaase Israel ay sheegtay in Pakistan xiriirka aysan sii wadi karin xitaa waxa la sheegayaa xogo sirdoon oo soo baxaya in Israel ay doonayso inay burburiso gantaalka ama nuclearka imika ay haysato ee Pakistan iyagoo hadaladii ugu dambeeyay ee Mareykanka oo laga dheexan karay wadan aan Christian ama Yahuud ahayn aan loo ogoleen ama wadan muslima gabi ahaantiisaba loo ogoleen inuu yeesto hubka nuclearka weeraro iyo qaraxyo ayaa goobo oo sida muhiim ah looga beegsaday wadamo ay ka mid tahay Ciraaq, Bahrain, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayay ahaayeen meelihii sida aadka ay u beegsatay Iiraaniyiintu isla markaana ay beegsadayeen keedaha shidaalka kadib markii keedka shidaalkii hore la beegsaday isla markaana Iiraan ay lahayd ayaa sababtay in xaaladdu bariga dhexe ay sii xumaato xitaa munaafacaadkii adduunyada inta badan ayaa noqday kuwa sii qaaliyoobad mar kale laakiin waxaa la dareemayaa saansaan dagaaleed iyadoo adduunyada saameyn weyn ay ku yeelatay isla markaana aysan xamili karin imika dhaqdhaqaaqa culus ee Iiraaniyiintu iyo Mareykanka ay isku hayaan dagaalka ayaa la soo tabinayay inuu saameeyay duulimaadyada caalamka ee qaarkood ayaa la sheegay inay ka leexdeen hawadii ay isticmaali jireen taa oo xitaa ay kaliftay in shidaalka uu sii dheeraado qarashaadka iyo isticmaali jireen waxaa la soo tabinayaa wax kasta caalamka imika la joogo inay qaali ay noqdeen xitaa dagaalka u dhaxeeyay Iiraan Mareykanka iyo Israel wuxuu saameeyay suuqyada crypto-ga ayaa la sheegay inuu sabab ay u ahayd inuu hoos ay u dhacaan taa oo lagu saleeyay inay sabab u ahayd colaadda ka socota ee bariga dhexe iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay wadamo badan ayaa ilaa imika si toos ah ugu walwalsan inuu dagaalka sii fido uu noqdo mid ballaaran iyadoo dagaalka imika uu ku soo koobmay afka iyo si lamid ah gantaalo la isku duqeeyo laakiin aan la ogeyn gantaalada halka ay ka imaanayaan location-kooda maalmo ka hor ayay ahayd markii Iiraan lagu duqeeyay gantaalo aan la ogeyn halka ay ka yimaadeen iyadoo Iiraan si toos ay u shaacisay isla markaana telefishinka dalkaas uu leeyahay ay xaqiijiyeen in gantaalo aan la ogeyn halka ay ka yimaadeen lagu beegsaday gudaha dalkaasi ugu dambeyntii warar kale ayaa soo baxayay oo maanta qaybo ka mid ah Tel Aviv ayaa la sheegay inay ku dhacaan dhowr gantaalo iyaguna aan la ogeyn halka ay ka yimaadeen taa oo ay u muuqato inay aargudsanayso Iiraan maadaama hore iyadoo ay u sheegtay inay tahay cid sida rasmiga loo duqeeyay xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan oo aan xasilooneen waxaase la soo tabinayaa in mar kale suuragal ay noqoto in dagaal toos ah uu ka qarxo ee bariga dhexe isla markaana la isweeraro waxaase kaloo la sheegayaa in weerarkan khatartiisa uu saameyn karo gobolka idil isla markaana saameyn xoog leh uu ku yeelan karo xaaladdaas ayaa faraha ka sii baxday lama ogase halka ay ka dambeyn doonto arrinkan isla markaana xaaladuse ay isu bedeli doonto dhinaca kale xuutiyiinta Yemen ayaa dhaqdhaqaaqyo culus ka wadaan ee gudaha dalkaasi Yemen iyagoona la sheegay inay u diyaar garoobeen dagaal xoogan oo mar kale ay la galaan Israa'iiliyiintu xuutiyiinta Yemen ayay soo saareen baaqi ugu dambeeyay ay ku sheegeen inay diyaar u yihiin inay iska dhaxshaan cadowga isla markaana ay dagaalmaan iyadoo halkaasi laga soo sheegayo dhaqdhaqaaqyo culus oo u dambeeyay isla markaana xuutiyiintu ay wadaan oo ay ku doonayaan inay qaadaan weeraradii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo culus ayaa halkaasi ka socda lama ogase halka iyo qaabka iyo nidaamka ay wax u dhixi doonaan laakiin waxaase la soo sheegayaa ay u badan tahay in colaaddu ay sii fidi doonto isla markaana dagaalku uu saameyntiisa mugle ay gaari doonto meelo tiro badan iyadoo aan la ogeen
khasaaraha baaxadda leh uu sababi karo ee dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka. Trump ayaa xalay ka badbaaday dil qorsheysan ay ahayd kadib markii maqaaxi mid ka mid ah dalkaasi Mareykanka oo kulan casho sharafeed uu kula qaadanayay wariyaasha ama suxufiyiinta ee White House-ka, halkaasi oo kulan muhiim ah ugu socday kadib deetana nin lagu sheegay inuu caafimaad ahaan aad u xanuunsan yahay isla markaana la sii daayay 2016 mid ka mid ah cisbitaalada dalkaasi Mareykanka lagu daayay inuu geystay qalalaaso aad u xoogan, taas oo sababtay in mar kale uu soo noqdo isla markaana uu geysto khasaaro xoogan. waxaase la sheegaa in ninkan uu Trump uu ka warhayay isla markaana uu sheegay inuu ahaa qof xanuunsan. FBI-da ayaa weli kiiskiisa baaritaan kusii wada iyadoo aan la ogeyn dhacdada waxa halkaasi ka dhacay, isla markaana waxa ku kalifay ninkan in hotel uu ku sugan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump uu soo weeraro. waxaase la aaminsan yahay in Iiraan ay kaalin mugla ay ka qaadanaysay isla markaana isku daysay inay mar uun ay qaarijiso madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump. waa sida Trump hore u sheegay iyo si lamid ahba dadyo hore loogu qabtay gudaha dalkaasi iyo airportka iyagoo usii gudbaya gudaha Mareykanka la qabtay ayaa xaqiijiyay sirdoonkaasi ayada Mareykanka inay ahaayeen dad shakhsiyaad ku lug lahaa ay doonayeen inay qaarijiyaan madaxweynaha dalkaasi ee Mareykanka Donald J. Trump. dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ayaa ka socda ee bariga dhexe isla markaana suuragal ay tahay mar kale inuu qarxo colaad u dhexeysa Iiraan iyo Pakistan, aan iraahday Iiraan iyo Mareykanka, si lamid ahba Mareykanka oo la jiro Israa'iiliyiintu. cabsi xoogan ayaa laga dareemayaa. waxaase la soo tabinayaa in xaaladdu faraha ay kasii baxday, diyaar garowna ay galeen. Iiraan waxa ay soo tabisay in gantaaladeedii iyo hubkoodii dhammaanba ay diyaarsatay isla markaana ay diyaar u tahay inay weerar tagto, ay fuliso dhammaan wax kasta u sahlaya in weerar ay ka fuliso gudaha Mareykanka iyo Israa'iil. dooman ayaa dhaqdhaqaaqyo culus ka wada gudaha marinka Hormuz oo halkaasi ay dib u xirtay Iiraan iyo si lamid ahba dhaqdhaqaaqyo military. miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa halkaasi lagu aasay, ay la sheegayaa inay sii badisay Iiraan. xaaladuse lama oga halka ay ka dambeyn doonto, laakiin dagaalku faraha ayuu kasii baxay oo wuu xoogaysay. wixii warar kale ku saabsan ee arrinka ee bariga dhexe kasoo kordha halkan kala socda. mahadsanidin.